kusoo dhawaada barnaamijkeygii cunno karinta ahaa anigoo ah sheef cabdicasiis dhicis waxaan idiin soo bandhigayaa qaab loo suubiyo hilibka lo-da. waxa aan yeelayaa waxa aan soo qaadanayaa safriito ka kooban basal, carrot iyo barbarooni. haddaad rabtid safriitada celery waa ku dari kartaa, waad shiilaysaa. marka ay maaragtay jilicdo kadib waxa aad ku darsanaysaa ood base kaga dhigaysaa hilib alle hilibkaa rabtid ama suugo kasta nooca aad rabtid. waxa aan soo qaatay hilibkii dhinac ayaan dhigtay. waxaan kaloo aan soo qaatay bur, cusbo iyo black pepper waa isku qasayaa, kadibna hilibka ayaan marinayaa. hilibka markaan labada dhinac ka mariyo waxa aan soo qaadanayaa digsigii ayaan waxaan ku shiilayaa hilibka, kadibna waxa aan ku darayaa basil iyo barbarooni aan soo shiitay. waxaan soo qaatay basal, carrot, barbarooni iyo hilibkii lo-da ahaa. burka ayaan cusbo iyo filfil ku darayaa. hilibkii aan dhinac dhigtay ayaan waxaan ku darayaa oon dusha ka marinayaa burka. digsi aan aada u kululeeyey ayaan labada dhinac hilibka kaga madoobeynayaa ilaa uu hilibka ka madoobaado dhinac walba. digsi ayaan waxaan ku darayaa saliidda markay kulaato ayaan waxaan ku shiilayaa safriitadii. waan isdhex qaadsiinayaa ilaa iyo basasha ay dhacaankeeda uu ka baxo. hilibka markuu labada dhinac ka madoobaado waan ka qaadayaa digsiga. waxaan kaloo ku shiilayaa basal. basasha marka ay jilicdo waxaan ku darayaa hal bakeeri oo maraqa nooca brownka ah. digsigana hoos ayaan ka hoolayaa si maraqa aan digleys kaga dhigo. markuu maraqa yaraado hilibkii ayaan waxaan kusoo celinayaa digsiga. hadda waxaan ku darayaa yaanyadii aan soo shiitay. dusha ayaan hilibka ka marinayaa si fiican ayaan dusha kaga marinayaa hilibka. waxaan kaloo ku darayaa kabsar caleen. waan daboolayaa, waan huurinayaa. foornada ayaan gelinayaa. hilibkii foornada ayaan geliyey. foornadana waxa aan geystay 325 Fahrenheit. waxaan karinayaa 1 saac iyo 35 daqiiqo. hilibkii foornada ayaan ka soo saarayaa. waxa aan ku darayaa barbaroonigii iyo basilkii, waa isla walaaqayaa. kadibna waxa aan ku celinayaa foornada. 15 daqiiqo ayuu hilibka foornada ku jiray. waa walaaqayaa, si fiican ayaan u walaaqayaa, waa isdhex qaadsiinayaa. waxaan kaloo ku darayaa barbaroonigii iyo basilkii aan shiitay. foornada ayaan ku celinayaa. dabka foornada waxaan geenayaa 300 oo Fahrenheit. waxaan karinayaa 1 saac iyo 20 daqiiqo. hilibkii foornada ayaan ka soo saaray. dhinaca kale waxaan ku karinayaa gnocchi di potato. markuu gnocchiga uu karo oo maaragtay oo kor yimaado waan ka qaadayaa. 1 saac iyo 20 minut kadib hilibka foornada ayaan ka soo saaray. dhacaankiisii iyo sooskiisii wuu yaraaday. sooskiisii waxaa ku cuni kartaa wax kasta aad rabtid. hilibka cutting boardka ayaan saartay. si isla eg ayaan u goonayaa. ma habboona hilibka marka aad foornada ka soo saartid isla markii in aad goysid. maxaa yeelay hilibka waxaa habboon marka foornada laga soo saaro in la siiyo wax la yiraahdo resting period, waqti uu hilibka maaragtay ku nasto si dhacaankiisa iyo juicekiiska ee maaragtay hilibka ay u galaan. haddii kale haddaad hilibka aad soo saartid ood istiraadid isla markiiba maaragtay kala go, dhacaankii ayaa cararaya. marka waxaa habboon ilaa iyo 10 daqiiqo
5 daqiiqo ilaa iyo maximum 15 minutes hilibka inuu suubiyo maaragtay oo nasto kadibna markaas aad gogoysid. hilibka si isleeg ayaan u goynayaa, wuu jilcay waa ujeedaan, fargeetada iyo maaragtay midida ayaan ku goynayaa. waxaan kaloo aan soo qaatay oo aan karinayaa oo hilibka lagu cunayaa baasto nooc ka mid ah oo la yiraahdo gnocchi di potato. waxa aan yeelayaa biyaan kusoo karkarinayaa, markay karkarto bataatiga iyo maaragtay baastada dusha ayuu imaanayaa, waa miirayaa, kadibna waxaan soo qaadanayaa sofriitadii oo shileed ayaan soo qaadanayaa iyo sooskii iiga soo haray maxaa la yiraahdaa hilibka waa ku walaaqayaa. taasna waxaa lagu cunayaa bataatiga gnocchi di potato ayaa lagu cunayaa. safriitadii oo ka koobneed basal, carrot iyo barbarooni oon shiilay ayaan waxa aan ku darayaa baastadii oo maaragtay gnocchi di potato ayaan ku darayaa, waa isdhex qaadsiinayaa. kadibna waxaan kaloo ku darayaa 1 qaado ilaa iyo 2 qaado oo dhacaankii maaragtay hilibka lo-da isteega iiga soo haray ayaa sooskiisii ayaan ku darayaa. waxa uu siinayaa dhadhan aad iyo aad u macaan. waxaan soo qaatay sixni, sooskii ayaan dhexda ka dhigay, sooskii hilibka ayaan dhexda ka dhigay, hilibkii aan slice usoo goostay 3 xabo ayaan dusha ka saarayaa. presentation kale uma baahna, kan qaabkaas ayaan ku daynayaa. waa ujeedaan, waxaan soo qaatay hilibkii, bataatigii ayaan dusha ka saaray, sixni ayaan soo qaatay, baastadii bataatigii ahayd iyo maaragtay safriitadii iyo sooskeedii ayaan dusha ka saarayaa. geesahana waxa aan ka dhigayaa hilibkii aan si isla eg usoo googooyey. maasha allah wuxuu kusoo baxay, waa ujeedaan. waxaan soo qaatay sixni, sooskii ayaan dhexda ka dhigay. very beautiful way sooska, waa ujeedaan. baasta ku cuni kartaa, waxa loo xirtaa ku cuni kartaa. baastadii noocii maaragtay bataatiga ahaa ayaan dhexda ka dhigayaa. 1 slice oo hilibna waxaan ka dhigayaa dhinac. sida kusoo baxay waa ujeedaan, very beautiful. sixnigan aan suubiyey presentationkiisa waxa aan ka dhigay qaabka presentationkiisa, waxaan ka dhigay ilaa iyo 3 noocood. si alla sidaa rabtid ayaa presentationka u suubin kartaa. daarta kor baa u dhisi kartaa, haddaa rabtidna hareeraha ayaa u dhisi kartaa. aniga waa simplify ayaan ka dhigay, very simple. aad baan u qurxoon yahay, waa ujeedaan sida uu kusoo baxay, maasha allah. waxa aan soo qaatay sixniga waxa aan yeelay sooskii ayaan dhexda ka dhigay, kadibna waxa aan soo qaatay bataatigii iyo hilibkii ayaan isdul saarayaa. waxaan dusha ka saaraya, aan ku qurxinayaa caleen. waa ujeedaan qaabka uu kusoo baxay hilibka iyo baastada gnocchida caawa idiin suubiyey, aad bay u qurxoon yihiin. wiigii horena waxa aan soo qaatay qaab loo suubiyo hilib ariga oo zaydici style la yiraahdo. caawana waxa aan soo qaatay, waa ujeedaan, hilib lo-aad iyo baastadiisii aan isku suubiyey, aad buu u qurxoon yahay. wiiga dambe hadduu alla idmo waxa aan soo qaadanayaa qaab loo suubiyo malayga oo aad iyo aad isagana u fiican. inta aan ku kulmi doono barnaamijkaani barnaamij la mid ah, aniga oo ah sheekh cabdicasiis dhicis. habeen wanaagsan. caawa kaamarada waxaa ii haya Abdullahi White Boy. Thank you, Abdullahi. Bye bye.